soo dhawaada jaalayaal. Mr Beast challenge cusub oo xiisiisa wata ayuu soo sameeyey. Ninkan Mark ayaa lagu magacaabaa. Waxaa lagu samayn doonaa waxyaabo halis badan oo cabsi leh. Haddii uu ka badbaadana wuxuu ku guuleysan doonaa $800,000. Challenge-ga koowaad waxaa lagu xiraa sanduuq, kadibna waxaa meesha loogu daadin doonaa 1000 caracaaro. Waxaana laga rabaa inuu meesha ku jiro 10 daqiiqo. Sababta loogu sameynayo challenge noocana waxay tahay Mark ayaa ku yiri waxaa rabtid igu sameey igama xabsiin kartid. Kanna wuxuu ka yahay challenge kale oo ka halis badan midkan. Haddii intaas oo dhan uu ka soo gudbana wuxuu ku guuleysan doonaa $800,000. Markay 10 daqiiqo u dhamaatayna waxaa laga soo saaraa sanduuqii. Sidaas ayuuna uga soo gudbay challenge-gii koowaad. Mark waxaa laga rabaa inuu dhameystiro dhammaan challenge-yada si uu ugu guuleysto cadad lacageedkan. Challenge-ga labaad waxay raacayaan wiish. Waxaa dhulka laga sarmarin doonaa 200 oo fii. Kadib waxaa loo sheegaa inuu indhaha furo, kadibna uu iska tuuro wiishka isagoo aan wax xarig ah ku xirnayn. Wuxuu intaas u raaciyaa aamin waa badbaadi oo anaga ku badbaadin doono. Balse Mark way ku adag tahay inuu aamino. Mark wuxuu Beast ku dhahaa run miyaa ma badbaadinaysaan haddaan istuuro. Wuu aaminay, xarigiina wuu iska furay. Wuxuuna u tira qabsaday inuu istuuro. wuuna istuuray. balse nasiib wanaag shabaq meesha loogu diyaariyey ayaa qabtay. Si daran ayuu u farxay. challenge-gii labaadna sidaas ayuu uga gudbay. Beast xitaa ma aaminsaneen inuu challenge-gan uu Mark ka soo gudbi doono. haddaad la yaaban tahay sababta uu Mark sidan u samaynayo, Mark wuxuu horey uga soo qayb qaatay challenge aad u khatar badan, balse haddana uu ku hungoobay ka qaybgalkooda. $800,000 ayuuna ku waayey. markana wuxuu u gudbi doonaa challenge-ga saddexaad. Mark wuxuu u maleynayay in laga rabo inuu gaariga ku dhex kaxeeyo biyaha, balse gaarigan halkan lasoo dhigay waxaa lagu keydiyey $800,000 ku tartami doono. inta wiish lagu xiro ayuu Markna raaci doonaa gaariga. joog sare ayaa laga soo dayn doonaa. Mark waxaa loo sharxaa waxa laga rabo inuu sameeyo. marka uu gaariga ku dhaco biyaha, Mark waxaa laga rabaa inuu isa soo badbaadiyo, boorsooyinka lacagta ku jirtana uu soo badbaadiyo. inta lacag ee uu soo badbaadsado ayuuna ku tartami doonaa inta muuqaalka ka harsan. wixii uu kasoo tagana sidaas ayay ku daayeen. fursad ayaa la siinaa oo ah haddii ay cabsi ku jirto inuu qaato $100,000 kadibna uu tartanka dhan iskaga baxo, balse wuu ka biyo diiday midaas. marka gaariga biyaha lagu sii daayo wuxuu haystaa keliya 20 sekin si uu isku badbaadiyo intuusan gaariga quusin. wuxuu jebiyaa miraayada albaabka si uu uga soo baxo, balse waxay la gaartay ilaa ay biyo soo galeen gaariga. nasiib daro wuu quusay gaariga, balse ma quusan oo wuxuu soo badbaadiyey boorsadii ugu horeysay. waxaa kusii adkaanaya ayaa ah in gaariga marka ka dambeysa uu sii quusayo, taasoo kusii adkaynaysa inuu si fudud usoo saaro boorsooyinka dhiban. dadaal dheer kadib wuxuu soo badbaadsaday 6 boorso, balse 2 boorso ee harsan way kasii adag yihiin kuwa hadda uu soo badbaadiyey. sababtoo ah waxaa lagula xiray suunka kursiga, wayna adkaan doontaa inuu soo wada badbaadiyo labadaba. boorsadii 7aad ayuu keenay, kadibna tii 8aad ayuu doonay, balse gaariga si toos ah ayuu salka u fariistay. suurtagalna ma aha inuu wax ka soo saaro. inta uu soo laabtay ayuu ku yiri ma arko gaariga. kadibna waxaa loo sheegay inuu isaga soo baxo. intuu challenge-gan socday waxaa biyaha kula jiray badmaaxayaal loogu talagalay inay badbaadiyaan hadday naftiisa halis gasho. waxaa la weydiiyaa muuqaalkan iyo kii hore kee wanaagsan. muuqaalkan ayaa wanaagsan ayuuna ku yiri. markan waxaa u harsan 3 challenge oo kale. challenge-ga afraad waxaa la keenay qol uu ku jiro sanduuq. waxaa laga rabaa inuu gacanta la galo, wixii uu taabtana uu banaanka usoo saaro. intuusan gelin waxaa loo sheegaa inuu saxiixo warqadan oo ay ku qoran tahay inuusan u qabsan karin wixii kasoo gaara sanduuqaas gudihiis. wuuna aqbalay oo uu u saxiixay. sanduuqa 2 god ayuu lahaa, godkaas ayuuna doortay. nasiib wanaag chocolate uu Mr Beast soo saaray ayaa ku soo aaday. sidaas ayuuna uga gudbay challenge-ga afraad. intuusan aadin challenge-ga shanaad wuxuu Beast u sheegaa in haddii uu siiyo $500,000 inuu iskaga baxayo tartanka. wuxuuna ugu jawaabayaa Mr Beast yaa ka dalbaday bixitaanka. Mark se gorgortan ayuu ogolaa. $400,000 ayuuna ogolaaday in la siiyo kadibna uu iska baxo. Beastna wuxuu ku yiri haddaad $200,000 ama $250,000 qaadanayso waan ku siinayaa gamekan aad iskaga baxaysa. balse Mark $350 ayuu ogolaaday, waana loo diiday. wuxuuna ku khasbanaaday inuu sii wato challenge-ga, balse midkan waa mid kasii cabsi badan kuwii hore. waxaa loo diyaariyey qabri lagu aasayo. waxaa laga rabaa inuu halkan ku jiro muddo 24 saac. waqtiga uu rabo ayuu kasoo bixi karaa, balse haddii uu kasoo baxo iyadoo aan la gaarin 24 saac, sidaas ayuu tartanka uga bixi doonaa isagoo aan waxba helin. wuu aqbalay waana lagu aasay. gudaha sanduuqa waxaa kasoo raaraca xarig ku xiriirsan gambaleel oo loogu talagalay inuu yeeriyo haddii uu rabo inuu kasoo baxo sanduuqa. waxaa loo sheegaa inuu xirto qalab lagala soconayo dhaqdhaqaaqa wadnihiisa. maadaama uusan saacad haysan wuxuu qorshaystay sida uu waqtiga ku bixin doono. wuxuu qorshaystay inuu 2 saac soo jeedo, 10 saacna uu hurdo, isla sidaasna uu sameeyo mar kale. waqti badan oo uu meesha ku jiray wuu caajisay, wuxuuna go'aan ku gaaray inuu soo baxo. nasiib wanaag markii banaanka loo soo saaray waxaa la tusaa inuu sanduuqa ku jiray 36 saacadood. sidaas ayuuna uga gudbay challenge-ga shanaad. intii muuqaalkan uu socday Mark waxa uu muujiyey inuusan waxba ka cabsanayn oo uuna wajihi
wajihi karo challenge kasta, balse challenge-ga ugu dambeeya waa midka keliya ee uu Mark ka cabsado, waxaana la geeyaa qolka uu ka dhacayo challenge-ga xiga, balse waa challenge-ga uu ugu neceb yahay maadaama uu challenge-gan dartiis uu horay ugu waayay $800,000. isagoo diidaya ayaa lagu khasbaa. Sharciga challenge-gan ayaa ah 4 heer ayuu marayaa, mid walbana waxaa la rabaa inuu calaamada dhexda ku jirta si nadiif ah u fujiyo si heerka kale uu ugu gudbo. Haddii ay dhacdo inuu jabiyo calaamada, wuxuu lumin doonaa $700,000, taas oo la micno ah in 2 jeer uu challenge-gan keliya ku lumin doono $1,500,000. hadday sidaas ku dhacdana waa markii labaad uu lacag intaas leeg uu khasaariyo. waxaa loo sheegaa haddii uu cabsanayo inuu qaato $300,000 kadibna uu iskaga baxo tartanka, ama inuu challenge-gan dhammaysto kadibna uu ku guulaysto $700,000. wuxuu go'aan ku gaaray inuu sii wato challenge-ga. waxaa loo qabtaa isla waqtigii ay hadda ka hor ku qaadatay inuu sameeyo challenge-gan oo ah 34 daqiiqo. midkii ugu horeeyey degdeg ayuu ku bilaabay kuna dhameeyey, midkii labaadna isla sidii ayuu u boobsiiyey wuuna ku guulaystay, balse kii saddexaad intuu islahaa ciyuu iska dhammeey ayuu si kadis ah u jabiyey. mar kale iyo niyad jab, sidaas ayuuna ku waayay wixii uu usoo tiiriya tacab beelay. fadlan haddii muuqaalkan aad ka heshay like noo saar. mahadsanid jaalle.